وما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم xildhibaan qaran Cabdiqaadir Carabow gudoomiyaasha ururada haweenka iyo dhalinyarada gobolka Banaadir fanaanka weyn fanaan qadarkiyow oo aan ku faraxsanahay in mar kale uu dalkiisa dib ugu soo laabtay iyo martida kale dhamaan ururka haweenka degmada Xamarjab ururka haweenka gobolka Banaadir waan salaamay runtii waxa amaan iyo bogaadin iyo mahadcelin mudan
walaalkay xildhibaan Carabow oo aad ogtihiin dadaalkii dheeraay oo u galay ilaa Muqdisho Addis Ababa si uu fanaanka dib xoriyadiisa ugu helo dhamaanteena aan aad u soo wada dhaweynay waxa kale oo u mahad celinaynaa guud ahaan intii ka qayb qaadatay sidii mar kale uu dib xoriyadiisa ugu heli lahay fanaanka weyn Qadarkiyo runtii Qadarkiyo waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee aadka loo jecel yahay fanaankana waad ogtiina waa astaan marka astaanteena inay dib noogu soo noqotay farxad weyn inoo tahay waan u mahad celinayaa sidoo kale ururka haweenka iyo dhalinyarada oo hogaamiyaashoodii ay nala joogaan runtii aad ogtihiin ayaga laftirkooda saakay la hadda inay alboor ku sugnaayeen ay sugayeen in fanaanka uu yimaado halkan waxaana sidoo kale ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ay u doorteen in hoolkan Xamar Jajab ay u doortaan in fanaanka lagu soo dhaweeyo annagana waxaan ku faraxsanahay in fanaanka markuu guureysaba uu soo dagayba uu hoolkan yimaado xaruntii degmada yimaado waxaan rajaynaynaa in heeso badan oo Xamar Jajab ku saabsan oo qaadi doono waan soo dhaweynayaa runtii kelmaddu ku haboon waxa iska leh xildhibaanka iyo martida kale iyo fanaanka soo dhawaada mar kale bahda warbaahinta saaxiibaday waan u mahad celinayaa sida ay u qayb qaateen laftirkooda dadaalkii lagu bixinayay sida fanaanka uu dib xoriyadiisa ugu heli lahaa soo dhawaada mar kale celinayno kadibna ma hadda kale munaasabadan maanta aan u joogno laba qodob ayaan ugu talagalnaa waa soo dhaweyn iyo mahad celin waa u jeedaan boorka halkan suran waxa ku qoran soo dhaweyn iyo mahad celin waxaan jeclaan lahaa inaan ismaqalno maadaama waxaan rabnaa inaan u mahad celino xildhibaankeena sharafta badan xildhibaanka sanadka 2020 xildhibaan Cabdiqaadir Ibraahim Carabow xildhibaanka daada yar xildhibaanka naxariista badan xildhibaanka waxa loo idmaday ka soo baxay xildhibaanka uu adeega bulshadiisa asagoo gudanaya waajibaadka qaran haddana dabcan dadka codka ku siiya ee aad matalaysid hadday noqoto magaalo iyo hadday noqoto meel walba ay joogaan waajibka xildhibaanka saaran waxa kamid ah inuu u adeego bulshada uu matalo xildhibaan waa mahadsantahay kaaga mahad celinaynaa waqtigaad ka oo dheeraa oo murugada lahaa ee xanuunka badnaa ee aan maqalnay inaad ka soo kicitay magaaladii aad joogtay kadibna aad timid magaalada Addis oo ku xirnaa fanaankeenna wiilkeena aan jecelnahay xidiga iyo quruxda magaalada Muqdisho Qadarkiyo ilaahay ugu guuleeyay maantana waxaan u gala joognaa soo dhaweyntiisii oo ay bahda saxaafadda iyo degmada Xamar Jajab oo aan u dooranay gudoomiye dhalinyar ugu yar gudoomiyaasha degmooyinka ka yimid bahda warbaahinta in uu nasiib u yeesho waxna ka soo dhaweeyo fanaanka magaaladan iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhanba ay sugayeen waxaan rabaa intii la joogtay inta uu xirnaa oo saaxiibadiisa la socdaa iyo kuwa meel walba jooga ee mar walbaba social media ku jiray hala sii daayo ha helo xorriyadiisa waqti badan galiyay sida Cabdifataax iyo tiim badan waa u mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo waqti badan gelisay inay noo suurtoodo inuu dib u helo xorriyadiisa dalkana uu ku soo laabto asagoo bad qabana uu noo yimaado maantay waa soo dhaweyn iyo mahad celinta xildhibaanka iskale xildhibaan waxaan nahay taageerayaashaada waxaan nahay dadka aad matalaysay waxaan nahay shacabka ku dhaqnaa caasimadda taageerayaasha fanaanka caanka ah ee dunida dhan laga yaqaano Qadarkiyo oo aad u tahay garabka iyo saaxiibkaba waxaan kaaga mahad celinaynaa xildhibaan mar walba aan ku leenahay waxa tahay xildhibaan aan dhici doonin codkeennana heli doona waqti iyo goob walba oo munaasabana waxa tahay xidiga iyo maaragtay fanaankan ee aad hawshiisa ku hawlanayd iyo kuwa baadiyaha jooga iyo kuwa magaalada joogaba annagu haddaan nahay haweenka gobolka Banaadir dhalinyarada gobolka iyo shacabka ku dhaqan caasimadda waxaan ku haynaa ixtiraam weyn oo ah inaad ku guulaysato in uu xorriyadiisa helo Qadarkiyo waxaan rabaa safaaradda dawladda Soomaaliya u joogta Addis inaan u mahad celiyo ayadana
إن أنا ما العلي شخصي والبو كقيب قاتي هداي نقطة جالية كل رقم ودن كإثيوبيا ضد كصوماليا ده أفك الصومالي وقال كدم قضية مر والبابا وهي اللي نايي وقدم بينه ما العلنا يا حكم كمحكمة الرذي أو قلاضي إنه يا شخص موادنا صوماليا ده إنه الحرية ديسة وحنا مثلا هاي مركا إن بدن ضد كصوماليا دي ضد كإثيوبيان كأن ولا لا نهاي علادو ده إن لبونبونين هاي طبعا وحرمنا إنا نوجانو وحنا يودن درسة أفريقيا صوماليا ناي واديس إثيوبيا جوجان درسة ناي ونسخ قصبنا ناي وحرمنا إن لقى الشقية نبضينتا لبدا الدجمو أما لبدا قبل أما لبدا الدولة دود عد والبقى جار لا إثيوبينا أي كل رقمته وناجن رجينا وحرمنا إن كبرنا هبط عنصرية ده مدبتكاركا وحرمنا أفريقيا إن نقطة ودم هذا sida wadankaaga marka ka baxdo inuu ku noqdo gurigaaga labaad taasoo aan ugu baaqayno wadamada Afrikaanka inay ka gudbaan cunsuriyada qoqobka kala sooca shucuubta dadka Afrikaanka ee madow ee adduunka looga yaqaan dadka madow Afrikaanka laakiin aan la kala hayb sooceynin adduunka uu gudbay waa global caalamkuna wuu isku tashaday inta kadib waxaan rabaa fanaanka inaan iraado fanaan ku soo dhawow Xamar Cadeey ma u maleynaa inaan mashxaradan iyo يعني فرحدان يقروحدان يسودوين تام بلارن أنك بقولنا سببتو أنين وحاء معلومة مقنعة موقت ميل مقد كجري يا مركا أن لما نورت مركا وروحي مهاد أسقناتي إلهي ونونتي مركا كلا وحان أمهد علينا الشعب كي الصوماليات أن أيجو كتاجنا هاي أيجونا وح أن كو هاي مانتا أن أيجونا وح كو هاي مانتا أن أما هاد شوغان هل كان أن هاد حاضر كو هاي أما هم مغنادان وسوشيال ميديا قار أن يسوع قارن هذان دمان توضب هاجني وحقوقه وأنا لما هواني هاجني وحقوقه وميدان ويلقى أوراني هلايو أنتي أي معان وميدان ويلقى أوراني هلايو وما سنتين دمان وحن أمهد علينا يا ماما جواهر وأوجه رئيس ماموين الصومالية أدبان إذن شغلهاي أدبان يعني أدريمي ما أنت فرحت وحن دريمي رفاتكي وقتي كان سوقاتي إن يعني ما أنت اللي قدر يعني إسكي لوبي سببتها يعني سودوينتين وح لقى بوجان كرمها ما لقدر كرو وحن كلو أمهد علينا يا إن صاحب كي قدوميها إن دقمة حمر شجب يا سجن نقوم ارتقاده هل كان إن سيدو كله قدوميها دلنيرة سجن جمال وجوجا هذا نسوق يا سجن دمان إن وح كلو إلى كي سودويه إن عبد الفتاح شاوي وسجن سقروح بدن يسودويه مركان سوق ومركا أن يعني وحي ما حدا أسقنات إلهي كسكو هنا بناكي ما الحلوان كدلني يردا هاي السجل لا أنتيس قدر إفتين بماركي لهنا عمرها قد كيسو بجرلا أنا يومرك ما يعورب حاجرتي أنا سنتايو وعاوي جرجاري أنا صعودي ما جرجاري مركي اللي فسرها مركي هو جرجارها دلني يردا إن سوماليات هذا جرتا إن منا أهان ضد بدن بأسله وعوي مد ما أنت جفانا أصله يعني يوروب جرا مغن وعوي مد وضدنمو يعني إنه قف والبو سوماليات قدام قناة وحنا الديار وياه قف والبو سوماليات وحنا الديار وياه قف والبو سوماليات ملا على العالم شو جوجي إنه يعني جرب سيو وحقفته وحنا لنا يحل بانشر وجوج هندعين دمان شعب كي سوماليات وايدين شعلها مل والبو جوجتان هدي أن إذن ده ميان كمر ما مقدش عدي منيت قرا كمر ننكرا ميان كمر ما مقدش عدي منيت قرا كمر ننكرا مقدشو مقالو
muqdisho ha jirto maamooyinkayga Soomaaliyeed waa idin jeclahay noolaada meel walba joogtaan thank you so much xildhibaankan ku soo dhaweynaya insha Allah هذه يا أمها سنتين بسم الله بعد الحمد لله وعربة وحنروا هنا هلكان كسلامو هنا ما عليو قدوميها دقمدا حمر ججب قدوميها دنيرة وعن ما أنت خصوصا دقمدي وقدوميها كي هاي يرينا مالك ولا جاي كرا مجد مالك لكينو فنان كدنيرة هلك على كينو أو ما علينا markayga waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamada caasimadda maamada Soomaaliyeed maamada caasimadda maama Jawaahir Baarqab oo hari waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir mudane Makaraan sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahad celiyo waaxda socdaalka iyo immigrationka oo hadda nagala joogo Cabdiraxmaan Caadle haweenka gobolka Banaadir iyo kuwa degmada Xamar Jajab meediyaha marti sharafta dhalinyarada kulli waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaa xilligan orax kuleelka ayadkoona aadan qadeynina saakana aanan mataqaanaa la soo quraacan in loo soo bannaan baxay fanaankiina Soomaaliyeed Maxamed Qadar Ibraahim Keyo waxay tusay calaamadda aad ka tahay magaalada Muqdisho soo dhaweynta ay ku hayaan iyo qalbisamada ay ku hayaan marka aniga ku hadlayo afkiisa waxaan rabaa inaan mar labaad idinkaga mahad celiyo sida u soo dhaweyseen inta kadib Qadar waxa lagu xiray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sanadkii hore bishii December dhamaadkeedii ilaahay maadiis muddo maalmo kooban gudahoodna xoriyadiisa dib ay u heleen kuma imaan xoriyadii inuu dib u helo si sahlan ilaahaygi weynaayo subxaanahu wa tacaala ee suuro geliye ayaan u mahad celinaynaa labo shacabkii Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay xiriggii fanaanka ayagana waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahad celiyo oo meel walba joogaan iga soo wacay ila garab taagnaay wax allaale iyo wixii awoodeen waa ugu mahad celinaa inta kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Soomaaliyeed xukuumadda federaalka Soomaaliyeed oo horkacayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Cali Khayre iyo wasaaradda arrimaha dibadda ma la yashkuru الناس la yashkuru Allah dadkii qofkan ilaahay ku mahad celin qofka dadkii wax abaalku u galo ku mahad celin ilaahayna ku mahad celiyo waxaan si gaar ah aan ugu mahad celinaa wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad aanan iloobid karin kaalinta uu ku lahaay siideenta fanaankeenna Soomaaliyeed iyo asigoo mar walba u taagan dadka ku xiran dibadaha sida ugu shaqeeyay xukuumaddan aan ugu mahad celinaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mahadsantiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii laba Cabdifataax laba leeyahay Cabdifataax waana la joogaa hadda kaamirada ka dhuumanaa marayna iyo nin Itoobiya joogo oo leeyahay Cabdifataax Aadan Tawfiiq oo har iyo habeen u taagnaay iyo gabdhihii u taagnaay iyo waalidiintii kulli waxaan leeyahay waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaali baa leh ummadda Soomaaliyeed waa hal qof kasta oo dhibaataysan aan matalna anaga qof kasta oo faraxsan waa matalna maniin qabiil maniin qabiil dhalinyarada wax ay ka caagantaa jiro
waxa la yiraahdaa qabiilka dhalinyarada qabiilka waa ka caagan tahay sidaas ayaan rabnaa inay uga caaganaato dhalinyarada Soomaaliyeed ha noolaadaan ummadda Soomaaliyeed ha israacdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.